waxaa batay dadkii waxaa soo weeraray waxa la dhahay stress markii qurbaha la imaado. Stresskan wuxuu yahay wax yar ayaan iftiiminayaa. Qofka markuu ka dheeraado dikriga Ilaahay ama cibaadada uu ka dheeraado wuxuu bilaabayaa fikir ayuu bilaabayaa. Habeenkii hurdadiis way yaraanay. Waxyaalahaas oo dhan waxaa keenayo haddii oo shantii waqti salaada oo waqtigeeda adiga aad ku dukan weyso oo adiga borbareen adiga aan xallin karin oo habeenkii aad ka fikirtid waxa waaye maskaxdaan way yar tahay. Marka waxaasoo dhan waxaa keenayo qofka inuu akhriyo qur-aanka Ilaahay, inuu dhagaysto. Markuu baabuurkiisa uu wato muusika u daaran, markuu masaajidka imaado wuxuu ku leeyahay aniga stress ay ahay ma aqaan wax oo aan samaynayo ila tali uu ku leeyahay. Qofka waxaa la rabaa tacliimaadka markii lagu siiyo wadadan inta mar haddii lagu dhaha inaan martidaa la rabaa, laakiin culmadii waa loo imaanayaa, waa laga dhegaysanayaa, laakiin hadalkooda lama qaadanayo. Waxa waaye qofku waxaa la rabaa in uu ka dheeraado wax kasto oo aan banaanayn ama sharciga aan ku banaanayn. Qalbigan sida marada ama waa la dhaqaa, waxaa lagu dhaqaa dikriga Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay alaa bidikri illaahi tatma'innu lquluub. qalbiga markii uu qur-aanka lagu akriyo oo dikriga Ilaahay lagu xuso wuu jilcayaa. qalbiga xumaatada oo dhan wuu ka soo leexanaya. laakiin waxaa rabtaa in xumaatadan aad ku jirtid macsiyada oo salaada aan jirin, heesaha iyo muusikaduna kuu shidan tahay, bal balwada kuu sii dheer tahay, waxaad leedahay stressa igu furan. stresskaas waxaa lagu daaweynayaa fafiruu ila Allah, Ilaahay u aclam, Ilaahay u toobakeen. adaa taqaan wixii oo aad samaysid oo dembi ah iska soo xir. qof oo shanta waqti uu tukanayo waqtigeeda oo qur-aan akhriskiisa maalintii ala aqala hajus uu akhrisanaayo, stress ma uu ku dhacay. naftaadana lalama sheekaysto. wax hadday kugu dhacaan waxaa la rabaa inaad dhahdo ruuxaan horey u qornaayo. shaydaanku waxa waaye wuu kula sheekaysanaya. naftaada lalama sheekaysto. waxaan saa maxaa waaye ama waxaa waaye barbareen oo ama waxaa lagu leeyahay lacag keen ama barnaamijaa lagaa raba adigana waxaa xisaabtaada lacagtaada waa yar tahay. barbareenaa isku fure kadib barbareen kale kuu soo dhiibaya. marka waxaa la rabaa waxaasoo dhan waxaa looga bixi karaa dikriga Ilaahay, in qur-aanka Ilaahay la akriyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay fi suurati Furqaan waqaala rasuulu yaa rab ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuuran. qur-aanka hadaad ka haajirtid khalas way adig iyo barbareen iyo caajis iyo walwal iyo saaxiibaa noqonaysa. waad aragteen. marka tan kale hadday wax kugu dhacaan, dhibaa kugu dhacay, haye wixii kugu dhaca waxaa la rabaa inaad dhahdid war waxaan horey u qornayn, hay ugu mashquulinin, horeyaa loo socdaa. hal mar haddii habeenkii adiga sariirtaad aad tagtid oo adiga aad soo weysatid oo adiga aad seexatid, naftaada lalama sheekaysto. mushkiladu waxaa waaye dadka qaar suuliya ku sheekaysaa markuu saa u fadhiyo. marka sheekada badan oo maalayacniga ah oo naftaada aad la sheekaysanaysid, sheekaba sheeko kale ku dhiibeen. marka waxaa la rabaa haddii oo adiga baabuurkaaga aad wadatid ama magaalada aad socotid, qur-aanka Ilaahay akri. haddii qur-aanka adiga aan xifdisanayn
استغفارنا استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عربك وحال الربا ذكر إله إلى برتدان الربا وحال الربا عربك إلى برتد قرآنك إلى آخر سال الربا. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لي اقرأوا القرآن آخرية فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ما القيامة ذاتك أخرنا هو شفاعي قرآنك صومك كله شفاعي. مركا وحال الربا يا إخواني إن قلبك لا تغو قلبك وحال لغة ذكر إلهي. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ماشي قفل لغما من القلب واي هتقول قلبك هليسين يعني جدك ورحمة تراي قلبك إنا ونجي حدك أدينا ضدك أو قلبك حاسين لماذا وحصلتن إنا كذا يلاتنا الربا. إلهي سبحانه وتعالى نقول تماما ذاتك في سورة الحشر عود والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سأصرنا إلى ذات المسلمين أو مؤمنين أو عبداء أو قادر لمرضو حاسن من لمرضو قفا وعوى إلهي النعمي حفيرين وحان إلهي أساب به هدين من كان شيء أساب سمينا الجولي سيأسل ميشا سكوتري أم سيأسل العكام كهري وحاسن مواي إلهي أساسي أريكو مويني لكن ولو امتحانا إلهي سبحانه وتعالى يقول لي أو يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إلهي أساق كيمنا كان لسينيا كان لسوقايا كان لودينيا إمسا قفا أركتن أو لعقب رئيستين أو قناسي أهانجلين أو ما تسوق كباي أو دلال إسكا ama barnaamij iska taagan oo maanta gacanta waxba aan ku haynin. Marka waxaan maanta waa lagu siinayaa haddii adiga oo qaraabada wax ka siisid oo zakada aad ka bixisid ilaahay wuu kuu barakeynaya iyo sadaqada aad ka bixisid iyo masaariicda caamka hortaada lagu wado haddaad adiga aad ka bixin weyso waxaa lagu leeyahay ninkan shalay wuxuu ahaa milyaaneer uu ahaa maanta waxaa waa eber waa leeyahay. Marka xoolaha markay gacantaada ku jiraan ka faa'iidayso خاصة ووفى إليه مصالح العامة صدقة وحياها بعد الموت. نبينا عليه الصلاة والسلام عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. بني آدم كتقول انتو عمل في سلطان وقوية إلا سدح مقوان سدح المحاضرة ما ينام كنت ذا كون صدقة جارية ساجدة مستيق علاق قدري ميلو واحد وقبرته علمي ينتفع به علمي هتدبرتين علم شرعي وما أنت علمي لبرنا وضدك عبرنا لكن أجل على ذلك وولد الصالحين يدعون تنكر. يا إخواني إن شاء الله ومع سنتهن الشيء صور إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.